السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروحda badan kusoo dhawaada Chicha's Kitchen. maanta waxaan jeclaaday inaan sameeyo biskud oo aan tufaax gudaha ugu dari doono insha Allah. marka waxaan maqaadirtan eegno waxaan halkan ku hayaa 330 gram koobkan ku cabiri doona markaan isku wada darayna saan ogaano meeqa koob weeyaan. halkan waxaan ku hayaa 60 gram oo sonkorta buudarka ah. waxaan halkan ku hayaa warango oo 70 gram ah. halkan waxaan ku hayaa looskan iyo looska adiga jeceshahay inaad ku dartid kii adiga jeceshahay. haddaadan loos jeclina waa ka dhaafi kartaa. halkan waxaan ku haysanaa 150 gram oo batar ah, 2 tufaax oo san aad u weyneyn oo san aad u yareen. halkan hal ukun aan ku haysanaa, 1 malqacad weyn oo qorfo ah, 2 malqacadood oo yogurt halkan ku haysanaa mise caano fadhiya. halkan waxaan ku haysanaa malqacad weyn oo iyo nuskiisa oo baking powder. halkan waxaan ku haysanaa malqacad oo vanilla ah iyo saliid. halkan waxaan ku haysanaa yani 60 gram taqriiban. marka ugu horeysa waxaan ka bilaabeynaa tufaaxeenaan hoolina. hadda dabkan saarayna waa inaa la kariyaa waayo tufaaxa biyuu leeyahay. marka 2 malqacadood oo sokorna waan ku shubaynaa si ay u macaanaato. marka waa kaas biyaha ka wada inay kulli biyaha ka qalashaan u baahannahay. marka waxaan qorfaheeni waan ku daraynaa si fiican markaas isu gelinaynaa. marka looskeeni aan soo gogoynay ayaan ku darayaa. biyihii way ka qalashay hadda. marka hadda dabkeen waan ka damiyey, waxaan daynaynaa inay qabowdo. marka waxaan ka bilaabaynaa butarkeeni. marka waxaan kusoo darayaa sonkortii oo budada ahayd. sonkorta kale loo samaxta ha isticmaalina waayo buskudka u adkeynaya. marka kan wuxuu ka dhigayaa buskudka marka qofku goosto inay afka ay ku duubto afka, yani ay ku dhamaato. hadda sonkortii iyo batarkii waan si fiican isu dhex gelinay. hadda waxaan ku shubaynaa caano fadhigii mise caano garoor, vanilaheeni baan ku shubayaa. waxaan ku darayaa waraangadii. gadana waan isla eegaynaa meeqa malqacadood aa gelaysa waayo garaam aan kusoo sheegay. marka 2 3 adiga 5 malqacadood. baking powderkeeni oo malqacada, baydkeeni xabada ukunteeni baan ku jibinaynaa xabada. saliidii waxaan ku qiyaasiyaa adiga rubac koobkiisa koobkan rubiciisa inuu yahay. marka si fiican soo gelinayna. marka koobka shaaha tartiib ayaan ku daraya. marka koobkii labaad ayaan ku daray. marka 2 koob iyo 3 malqacadood ay noqotay 330 gram, 2 koob iyo 3 malqacadood. marka waa kaasaa way soo qabsatay. waan soo xashiyaa, waan isku soo darayaa, waan xashiyaa adiga muddo ilaa 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo si aysan gacanta ugu dhigin. marka waxaan u shidaynaa furankii 180 aan u geynaynaa. kor iyo hoosna waan ka shaqaysiinaynaa si usii kululaato. anigana cajiinka wax yar isku daro markaasaan isku soo noqonaynaa. marka waxaan rabnaa inaan burka marino, yani aan ku firdhino si aan buskudkeeni aan u fidino. marka xajmigan aan rabay qiyaastan. marka waxaan u goynayaa taqriiban 8 lagu dhuftay, yani 8 centimeter isku dayay aan u goyn rabaa. waa idin tusaya waxaan ka wado inaan halkaasaan rabay inaan ka gooyo.
intaas marka tufaaxeeni aan soo karinay halkaasaan ku ridayaa fowranka yani dhinaciisa baad kusoo qabanaysaa waxaan isku daynaa inaan ku xiro si fiican aan isku dhejino si markay u gasho maxaa la yidhaha furunka aysan karka kuwan kalena nus ilaa yani qiyaas ayaan jaraynaa dhinacayaasha dhanba marka midaan kusoo rogayaa hal kale aan isla sameyno marka kulli saana usoo sameynaya marka waxaan kusoo ridayaa meesha saxanka ovenka marka waa isku soo noqonayna marka kulli saanaan soo dhameeyay marka hadda furankaan gelinaynaa 180 daqiiqo ilaa 18 daqiiqo inuusan korkiisa madoobaan wax yar bunni khafiif oo yani qurux badan aan ka rabnaa marka shaahan soo karsanay shaahina caadiga ah markaas la eegno bal gudihiisa maasha allah yaa salaam eg maxaa la yidhaahdaa siduu yahay maasha allah buskutka yani afka hadaa gelisid bas yani afka ayuu ku dhamaanayaaba intaadan ilkaha ku qabanin soo tijaabiya marka tacliiqaadkana igu soo qora insha allah like-da iyo subscribe-ka hayga iloobina su-aal baan maanta idinku xujeynaya koobabkan yaryar oo shaaha ku cabo wadankee baa isticmaala marka qofkii garta tacliiqaadka igu soo qora insha allah marka saxa wahana insha allah intaan mar kale wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa maca salaam fi amaanillah